Ma isku aragtay maqal yari? Ma isku aragtay cuncun dhagaha ah? Ma isku aragtay dhaga xanuun markastoo aad dhagaha gashato samiicadaha dhagaha? Ma isku aragtay dhukay badan? Fadlan ku daawo muuqaalkeena xogtan ku saabsan dhagaha wax lagu dhagaysto maanta adoo subscribe ii saaraya channelka. In aad saacado badan aad isticmaasho xariga dhagaysiga dhagaha ama aadba ku seexatay isaga oo kugu jira ayaa leh dhibaato aad u badan oo waxyeello u geysan karta nafsadaada, waxaana ka mid ah dhibaatada ka dhalata inuu dhinto unugga dhegta. Haddii wakhti dheer uu kugu jiro earphone-ka ama aad ku seexatay isaga oo kugu jira, ayaa waxa uu kuu keenayaa in uu yaraado dhiig wareegga soo gaari lahaa unugyada dhegtaada. Marka haddii taasi dhacdo, waxaa dhimanaya qayb ka mid a dhegtaada. Sidaa darteed, waxaa kuu fiican inaadan wakhti dheer isticmaalin ama aadan ku seexan samiicadaha dhagaha ama earphone-ka. In dhuka xiro maqalkaaga waa caqabad kale iyana oo dhibkeeda leh. Dhagahaaga waxay si dabiici ah u soo saaraan dhukay ka difaaca xuubka dhagaha wixii dhib ah oo soo gaari lahaa. Haddaba isticmaalka badan ee earphone-nada ama xarigaha dhagaha ayaa keenay in dhaguhu ay soo saaraan dhukay ka badan intii loo baahnaa, kaas oo keenaya inay xirmaan dhagaha, sidaasna uu maqalku ku yaraado. In aad dareento guux, dhawaqyo, shanqar dheer ama qaylo waa mushkilad kale oo la arko ama la dareemo. Xaaladdan inta badan waxaa sababa dhaawaca unugyada timaha ee cochleaga. Unugyada timaha ayaa mas'uul ka ah inay u beddelaan mawjadaha dhawaaq. Tan ayaa qofka ku sababaysa inuu maqallada hoose u dareemo maqal dheer oo qaylo ah uu aad u dhibsado. Mararka qaarna uu maqlo guux iyo shanqar aanba jirin, meel ay ka imaanayaanna uusan fahmin. Waxaa kale oo dhegta soo gaari kara ama ku dhici kara caabuq ama infekshan. Dad badan ayaa wadaaga ama isku dhiidhiiba earphone-nada oo isla isticmaala, waana wax Soomaalida caadi ay u aragto wadaagidda hal xarig dhege. Haddaba arrinta wadaagidda earphone-nada ayaa khatar kuu horseedi karta inuu kugu dhaco caabuqyada dhagaha, maadaama xarigga dhagaha uu gudbin karo jeermisyada isaga oo ka soo qaadaya qof una gudbinaya qof kale oo ay isla isticmaaleen hal earphone. Taas waxay fududayn kartaa in caabuqyadu ay u gudbaan maskaxda, maadaama ay isku dhow yihiin dhagaha iyo maskaxda, kuna keeni karaan inaad dhumiso awooddahaagii jismi ahaan iyo caqli ahaanba. Haddaba ka digtoonow inaad qof la wadaagto hal earphone. Sidoo kale, isticmaalka wakhti dheer uu kugu jiro xarigga dhagaha ama earphone-ka ayaa kordhin kara inuu jeermis ku dhasho dhagahaaga. Inta aan u gudbin saamaynta kale, haddii ay jirto calaamad aad isku aragtay, fadlan comments-ka iigu reeb si aan u ogaado in waxaan aan sheegayo ay wax ka jiraan. In uu lumo maqalka. Dhibtan ayay isku arkaan dadka wakhtiga badan isticmaala dhagaha. Xarigga dhagaha ayaad markaad xirato soo saaraya dhawaq toos u gaaraya maskaxdaada, kana dheer maqalkii caadiga ahaa oo aysan xamili karin dhegtaadu. Joogtaynta wakhti dheer xarigga dhagaha ayaa keena dhagoolnimo, xitaa haddii aad isticmaasho wakhti gaaban oo aad codka samiicadaha aad u dheeraysato. Sidoo kale, cuncun iyo xanuun joogto ah oo mar walba dhagaha aad ka dareento ayaa waxaa keena isticmaalka xarigga dhagaha adiga oo samiicadaha aad u dheeraynaysid ama codka dhagaha aad saa'id u dheeraynaysid. In dhibaato kaa gaarto maskaxda waa caqabad kale. Dhammaan caabuqyada ay horseedaan xarigaha dhagaha ayaa u gudbi kara maskaxda, taas oo ah xaalad khatar ah oo qofku ku waayi karo noloshiisa caadiga ah. Waxbarashada oo kugu adkaata waa mushkilad kale oo la arko ayana. Waxaa yaraanaya fahamkaada iyo xusuustaada, taasoo kuu horseedaysa in ay waxbarashadu ay aad kugu adkaato haddii aad wakhti dheer ama joogtayso isticmaalka xarigga dhagaha. Xogtan waxaan ka soo qaatay page-ka Facebook ee uu leeyahay walaalkeen Dr. Xasan Axmed Maxamed. Haddii aad ka heshay
waad ku xirmi kartaa oo follow dheh asaga. sidoo kale warbixintan inaan soo raadiyo waxay igu dhiirigeliyey commentiska asxaabta page ku xiran oo aan arkay, waxaana fariintaas ii reebay walaalkay ka mid ah dadka ii daawada, magaciisuna yahay cabduqaadir siciid maxamuud, sidaa shaashadda ka aragtaan. ii reeba fikraddiina si aan wixii macquul ah uga soo hadlo. muuqaalkeenna maanta intaas ayuu ku egyahay. fadlan ha iloobin inaad sabskaraib dhahdo, gambaleelkana furato, asxaabtaadana u sheergaraysid ama la wadaagtid. haddii aad ka heshana muuqaalka like saartid, mahadsanid. la soco muuqaaladeenna kale ee xiga kana xiiso badan kuwan.